ma ogtahay inuu soo baxay taleefan meel kasta oo aad caalamka joogtid ku isticmaali karto internet free ah kuna jaajar gareysan kartid qorraxda. waxa kaloo dheer inaad booqan kartid hawada adigoodan aadin. kusoo dhawaada taleefanka cusub ee loo yaqaano Tesla Bi. taleefankan ee loo yaqaano Tesla Bi wuxuu ka mid yahay taleefanada casriga ah ee sanadkan la soo saarayo. waxyaalaha cajiibka ah ee uu leeyahay taleefankani kaga duwan yahay taleefanada kale ee la soo saaray ayaa waxa ah 3 qodob. qodobka koowaad inuu egno haddii uu taleefankani ka dab dhaco uma baahnin charger iyo wixii la mid ah. haddaadan haysan waxaad ku daweysan kartaa qorraxda ama cadceedda. waa wax cajiib ah runtii. ogowna wax qalab ma adeegsanaysid si aad qorraxda ugu daweysatid ee waxaad si toos ah u dhigaysaa taleefankaaga qorraxda dabeetana sidaas ayuu ku daweysmayaa. waa taleefanka cusub ee laga sugayo ninka ugu taajirsan dunida ee loo yaqaano Elon Musk. hantidiisuna gaarayso 200 bilyan wax ka badan. qodobka labaad ee ugu duwan yahay taleefankani taleefanada kale waxaa ka mid ah waxa kala socon kartaa hawada sare. waxaad awood u leedahay inaad taleefankaaga si guud hawada sare ugala socoto. haddii aad baratay cilmiga hawada sare waxaad awood u leedahay sidoo kale inaad la xiriirto satellite-yada hawada sare marayo. waxaana inaad la xiriirtid satellite-yada kuu suurtagelinayo adeeg cusub ama tiknoolaji cusub oo uu wato taleefankani kaas oo loo yaqaano magac ahaan Starlink. tiknoolajiyadan waxay awood kuu siinaysaa inaad hawada si toos ah ugu xiranto adigoo tagaya caalam kale. qodobka saddexaad ee ugu duwan yahay taleefankani taleefanada kale ee caalamka ayaa ah 4 kaamiro ayuu wataa. laakiin wax kale ayaa dheer oo 4 kaamiro iska caadi ah ma ahan. wax kale uu leeyahay wax kale ma ahan ee marka uu kaamirada duubayo ama sawir uu qaadayo ayaa waxay tahay ka awoodiisa ayaa waxay gaaraysaa ilaa 108 pixel. waana meeshii ugu sareysay waana taleefankii ugu sareeyay ay kaamiradiisu gaarto 108 pixel. waa wax cajiib ah runtii. waxaa wax walba ka sii daranba taleefankan ee loo yaqaano Tesla Bi maskaxdiisa ama keydkiisa waxa ay gaaraysaa 2 terabyte oo ah waxa uu dhigma 2000 GB. meeshii ugu sareysay ayuuna maskaxaan ka maraya. waana taleefanada la soo saaray abid maskax ahaan kan ugu sareeyay ee haddan caalamka yaalo. waana waxa uu dheeriyay taleefankani taleefanada kale ee hadda caalamka laga isticmaalaba. waxaa intaas u sii dheer taleefankani waxaa lagu maamuli karaa dhammaan gawaarida ay soo saarto shirkadda Tesla. shirkadda Tesla ayaa waxay soo saartaa gawaari si automatic isku wada. gawaaridaas ayaad ku maamuli kartaa markaa taleefankani sida inaad ku damisid ama aad ku daartid ama inaad ku hubisid inuu shidaalka buuxo ama haafihi ama inaad ku logoreysid mobilka. haddaba taleefankan ilaa hadda weli si rasmi ah uma soo bixin suuqa iibka. qiimo imisa ayaa is leedahay waa la iibin doonaa adigoo qiyaasaya taleefanka qiimihiisa. halkaas waxaa noogu eg muuqaalka aynu kusoo diyaarinay mobilka Tesla Bi. muuqaalkiisa xiga intaan kulmayna waxaa idin leeyahay السلام الله عليكم.